munaasabad lagu soo bandhigayay 5 qof oo ku guuleystay in loo maalgeliyo fikrado ganacsi oo ay la yimaadeen ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho. warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed. munaasabadani lagu soo bandhigayay 5 qof ee ku guuleysatay in loo maalgeliyo fikradaha ganacsi ay la yimaadeen ayaa waxa iska kaashanaya ururka Shaqadoon iyo Kimis waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday Shaqadoon iyo Kimis iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo xubno kale. ujeedka barnaamijka ayaa waxa uu yahay sidii loo dhiirigelin lahaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada wax ka baratay jaamacadaha ku yaala dalka ee la yimaada fikradaha ganacsi. tartan in muddo soo socday oo u dhaxeeyay dhowr tartame ayaa waxa ugu dambeyn soo baxay 5 kamida dadkii tartamayaasha ahaa. Cabdirasaaq Muuse oo kamida mas'uuliyiinta Shaqadoon Foundation ayaa ka hadlay munaasabada. dadka trainingka la marsiiyay 8 isbuuc socday waxa si habsami leh qurux badan ugu soo gaartay inta ku guuleysatay ganacsiga ay bixinaysay trainingka Shaqadoon intuba waxa guul si wanaagsan u soo fuliyay soo dhameystiray maanta ardaydu winnerska lagu dhawaaqi doono holkaana waxa inoo leh ku dhawaaqi doonaan ka Islamic Microfinance Services madaxdeeda. qaar kamida mas'uuliyiinta ka ayaa madasha munaasabada hadal ka jeediyay. waxaan u baahanahay cid gacanteena qabata, cid kii aqoon u baahan aqoonta ka dhista, cid kii u baahan inuu wax soo saaro oo wax soo saaran kara gacanta qabata. يعني wax badan baan u baahanahay. waxa ilaahay mahadiye xawaalada ka maanta inay ay soo gaadhay heer inay dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax doonaysa ay gacanta qabato macnaha wax u tarto. macnaha barnaamijkeedu xawaalad buu ahaa laakiin waxay u gudubtay investment inay bixiso inay dad wax raba inay wax soo saaraan ay gacan qabato oo aan filayno inay ka dhabayn doonaan insha Allah ta'ala. waxaa soo haray dad ilaa 9 qofood gaaraya kadib markii loo bandhigay Kimis madaxdeeda sare waxay macnaha goorfeeyeen oo ay ka fiirsadeen ganacsiga la maalgelin karo ee lacagaha laga yaabo inay ka soo laabtaan berito iyo mid ka suuragal aysan ahayn maanta in la maalgeliyo laakiin tomorrow macnaha dib loogu dhigi karo. sidaas daraadeed Kimis waxay go'aansatay in 5 ganacsi ay ka qaadato 9kii ganacsi fikradihii la soo bandhigay. 5tii ganacsi baan maanta u joognaa halkaan inaan mutaqaanaa halkaan ka shaacino oo niraahdo hambaliyo. gabagabada munaasabadaasi waxaa ka hadlay qaar kamida dhalinyaradii ku guuleystay fikradihii ganacsi ay la yimaadeen in loo maalgeliyo. dareenkayga maanta aad u sareeya maadaama aan noqday qof kamid ah guuleystayaasha maanta lagu dhawaaqay in mashaariicdooda la maalgelinayo kadib markaa tartanka soo galnay. and farxadna waa dareemayaa somehow na mas'uuliyad waa dareemayaa ma ahan waxaan oo la dhiibay just something easy ah waa lacag la maalgelin doono and future-ka ilaaha og wuxuu haayo marka I feel in guuleysan doono. maanta waxaa ii bilaaban doona hadduu ilaahay idmo implementationkii ama fulintii hawshii ficilka ahayd taasoo dabcan ka adag qorsheyntii hore saan isleeyahay laakiin 100% waxaan rajaynaa wixii aniga aan soo qorsheysanayay waxaan rajaynaa inuu ilaahay igu guuleeyo ayna noqoto wixii saameynta san aan kaga yeelan lahaa wadankayga Soomaaliya wax badanna anfacda dadka oo dhan gaarta maadaama barnaamijku yahay barnaamij guud oo ballaaran dadka oo dhan siyaabooyin kala duwan ay uga faa'iideysan doonaan. Maxamed Muuse Maxamed, Somali Channel, Muqdisho.